السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وولاشينا جواهر حسين halkaad nagala socotaan waa channelka Jawahar Xuseen Jawahar Xuseen maanta waxaan wadaa sheekadii taxanaha noo ahayd oo ku saabsaneed tahriibka iyo qisadii aan wadaa insha Allah taala gabarna walaashayna igu soo xirtay challenge ee ayaantan xogaa qadka iska yar cusla oo noo jawaaba insha Allah باذن الله الكريم طبعا ninkii asiga ahaa Allah musta'an marka la soo siiyay dadkii oo Sacuudiga ila joogay markii la soo siiyay oo sidii arintii lagu xaliyay oo dhowr mar la soo wacay la dhahay naaga tahay ya hadhowan ma naceebaysa taban tan idin ceebeynayso waxaan dhahay taban ima taqaaniin aan dhahay Jawahir maaha insha Allah taala waxaan ka soo fiirsanina ma umaleynaa inaan ku dhaqaaqi doono arintaas aniga go'aankeeda soo gaaray fuliya arinteeda تمام على دهاي وياهاي أرنتي اللي فولي الحمد لله وها سدي ورقدي لقى خالص سدا إذا الشيء سدي يعني وحقول نقضي الحمد لله مطمئنة مرتاح كل نقضي سدي مركز وحاب النقضي قف يعني أو استنبي مش أنا استنبي وكجري استنبي وكجرتا أب النقضي فهمتين markaas oo go'aan gaaray xataa ninka iska dhaaf anigoon caadi u baranin xataa guri hada u tago anigoon iska baranin oo noloshiisa waxyaabo badan dabeecadihiisa waxyaabaha uu ku xun yahay waxyaabaha uu ku wanaagsan yahay ani waxyaabaha aan ku xumahay waxyaabaha aan ku wanaagsanahay in anagoon is baran in aan nolosha kale jaanis siinin fahmaysiin meeshaan ka wadan akiid dad caaqilatihiin ma sha Allah taala asxaabta ugu xiran waa dad inta badan waxyaabo badan fahamsan in wafahmi kartaan meesha ka hadlaay tamam waxay sidii ahaataba Sacuudigii marka aan sii joogay cidii aan la joogay cid wanaagsan iyo noqdeen cid wanaagsan oo luqadda si fiican aan ugu soo bartay oo diinta si fiican aan ugu soo bartay ma sha Allah yani qof islaam ahay islaamnimo ku dhalanay laakiin Soomaalida inta badan Quraanka way barataa oo waxa laga yaabaa in uusan macnihiisa aysan fahamsaneen laakiin ciidaas ma sha Allah Quraanka macnihiisa waxyaabo badan ka soo fahmay ilaahay jazadooda jannada ha ka dhigo marka ciidii Allah musta'an ciidii hadana yani xogaa waxa kala kulmaa wax mashaakil weyn ma ahan yani ciidii waxay arkeen in aan shaqo diyaar u ahay in aan shaqeysanayo in oo hawsheeda aan qabsanayo marka ciidii waxay ii noqdeen cid aad u wanaagsan wala gurigooda iska weynaa hadana cid ilaaheeysa ma lahan maxaa waxaas u qabataa maxaa sidaa u yeeshaa maxaa inta ugu dhacday cid ilaaheeysa ma jirto waxa laga yaabaa 3 bilood 4 bilood in aan ka soo degin fasaxa ugu soo degina laga yaabaa aan iska joog marka waxa joogto oo dareemi kartiin ana markaas yani دوعلنا مئيه دوعل ولا شيء ذا هم فهميسين يعني دوعل ولا شيء دوعلنا مواقصات تاجي ناقوين نما تاجنا يعني لحاجة تاجنا هاي قبل قولي كانوا واحد جوكتو قبل سديد توانجر عاد جوكتو قبل سديد توانجر طبعا أيضا دوعل يعني أنا كمرك اللي إيه سيدو كلامي أيضا سيدو كلام قفوين مسوعهن marka gabadhii طبعا والد كده أقوله التليفون إني قاعدته أقوله markaas maalin waxa ugu dhacday subhanallah telefonkeyga ay iga qaadatay dadka inta badan waxyaabahaas oo kale Etoobiyaanka Indoneesiyaanka xabsiga ku muteystaan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala imootiyay oo dadkii waxay ii noqdeen dad wadaado oo ma sha Allah ii noqdeen oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala yaqaan marka gabadha hooyadeeda iyo waalidkeeda waa dad oo mar walba baxo guri ma jooga ani ayada inta badan guriga joogno markaas waxay ugu sameysay waxa la dhahaa marka mar walba hooyadeeda markay bixis waxay ugu dhahdaa Jawahir meeha gabadhan telefoonkaaga ka ilaaliso markaasna hay'adda telefoon oo waxa soo baxay Samsung-ga soo baxay Samsung-gi Jawahir WhatsApp markaas ay xiiseynaysaa Nimbus iyo Blay Skype adduunkaas ay xiiseynaysaa ma telefoonka yar ee Jaanis u haysaa oo tooshlah ma tab Jaanis u haysaa ma tooshlihi oo lagu jisaaray waa aslaftigiis waa lagu jisaarayo oo waki oo marka qadka la haysan oo mukaalmaad jamaaciga ama koolka oo dadka badan lagu sheekaysan jiray tafashka iyo caajiska qaadi jiray waa lagu jisaar meel la dhigay waxa la arkay Skype iyo WhatsApp iyo Nimbus iyo adduunkaas iyo Tang iyo adduunkaas loo soo jeestay kii waa lagu jisaar meel la dhigay marka gabadhii waxa la ilaa telefoonka ka ilaali maana telefoon soo jeedo doocil walaasheeda ama doocil ilaalin kara Ilaahay baaro waxa sameeyay gabadhii waxay sameysay telefoonka yariiska horta ha ka xado telefoonka yariiska ha ka xadee
طبعا ايضا قبر يروايه ان ما awoodo telefoon laan inay joogto telefoon laan inay joogto ma awoodo telefoon ay u baahan tahay marka waxay iska kay dhigtay inay ciyaarayso oo gameka oo maska inay ciyaarayso iska kay dhigtay gamekii maska ay ciyaarayso iska kay dhigtay ma aqaanay number meelay ka keentay numberay wacwacday numberadii markay wacwacday numberadii ma aqaan numberadii waxay noqdeen dad qaraabadoodii ah dad ayaga qaraabadooda ah dabcan waa la ilaaliyaa sorry sida mar walba idin sheego wadaan oo dhow anaga sorry marka dad qaraabadoodii ay noqdeen telefoonkii ay wacwacday ay waxay isleeyahay dad iska baro wiil iyo gabar wixii markaas oo qadka ku soo galo iska baro ay islaheed xoogaa caajiska ha kaaga baxday ilaa qof guri ku jiro way banaan ma baxayso marka ilaahay amarkiis telefoonadii waxay u noqdeen dad qaraabadoodii ay noqdeen dadkii qaraabadoodii markay noqdeen telefoonka laga dirayna waa telefoonkeyga numberkeyga waa numberkeygu waa arintii waxay noqotay waa la isku qabqabsaday waxa la lahay marka dibka dhan waxa keenay waa shaqaalada idin joogto naagta xuno madow idin joogto waa idib darada dhan ayada siisa telefoonkeeda ayadaana maxay radaa dadka ay nimanka iyo naagahaba ayada barayso nimanka iyo naagahaba ayada baraysa naagta xumo madow idin joogto waa ani waxa soo dhan wax ma ka ogi markaas waxa imaaday gurigii walaalkeedu ordaya imaaday albaabka macni waligooda marka cidaas cid wadaado waa waligooda qolkayga ma ku soo xad gudbin wala nin wala naag qolkayga cid ii soo gashay ma lahan cunuga ugu yar 13 jir inuu ahaan jeclahay albaabkayga markuu soo galay uu soo garaaca markaas waxa la dhahay marka hooyo waxa joogto guriga yaani waxa ku tilmaamo malahan malab way ka sii macdahay hooyada dhashay markaas waxa albaabka ii soo garaacay walaalkeedo cararaay albaabka ii soo garaacay naxdin aan waligay liano hal sanmiya amala u shaqeynaa waligay sidaas oo kale ma la igu soo garaacin albaabka waan naxay waxaan sir maanta sida wax u jiraan ana waa soo qeyli ايش في maxaa idin ku dhacay maxaa idin daariyaa waay jawaahir foor albaabka waan naxay yani wiilkii waay yani waligay saas ma igu soo garaacin mustaqriba noqday yani waa yaabay waxaan sir maxaa ku dhacay kan bismillaah maanta maxaa ka sii xoogaa baqdina ima galina yani wax ma ka filinaayo cido wax yani qalad inay ugu sameeyaan kama filanaayo tamam waxaan dhahay maxaa rabtaan dhahay numberkaaga soo sheeg ugu dhahay marka numberkaaga soo sheeg numberkayga hooyada ayaa haysaan dhahay hooyada soo weydiin maxaa numberkayga ii weydiinaysaa hooyada ma weydiinaya adiga sheeg oo dhahay numberkaaga adiga sheeg marka waxaan iska dhigay caadi yani aniga waxba ma ogi aslan waxa ma ogi numberkaya sheegay sida eber halkeeda eber shan kida okay jawaahir wuxuu yiri sababta adi telefoonkaaga nimanka oo la hadlaysid maxay tahay marka saas leedahay runtii waan naxay telefoonkaaga nimana oo la hadlaysid nimanka xagee joogaan waxaan dhahay adi ma waalata dhahay mis waa fiyooda dabcan waa fiyoo waa qofta waalan waa adigu dhahay qofta waalan waa adiga oo rabtana mashaakil inay sameeyso waa adiga markaas waxaan dhahay maxamed oo ka noqotay aan dhahay maxaa kugu dhacay maxaa waxa ku hadlaysid waxa ku hadlay waa ogtahay ugu yiri yaani qof sida qof wax og camalo igu la hadlaa waxaan dhahay waxa ma ogiye maxaa ka wada maxaa waa waxa sheegaysid markaas wuxuu ugu yiri sababta aad telefoonkaaga dadkeena ugu diraysid message-yada maxay tahay markaas waa naxay runtii waa sii naxay ani ma dadkiina message u diraan oo dadkiina numberkooda xageen ka helaa oo dadkiina numberkooda ay siinayaan oo dadkiina ay baraan adinka idin shaqeeyateeda adinka idin shaqeeyaan dhahay oo dadkiina dad adinka idin ka socdo ma aqaaniye walaalo iga leexan dhahay hooyadaada ugu asaanada baa isfahmeynaa ama gabadha heblaay ugu wacaan dhahay heblaay ma ku iimaanayso yiri heblaay ma ku iimaanayso waligeed aysan iimaanaan dhahay bas iga leexa albaabka marka xoogaa marka la joogay albaabkii afuray gabadhii ay soo gashay marka gabadhii markay ii soo gashay jawaahir miyaha ayadii markay ii sheegay jawaahir miyaha aniga shali ma ahayn darad camal ay ahayd adi waxaas sameeyay markii madaxa gacanta saartay adi waxaan dhahay mawaalanta anna baxara ay gelinaysan saan wax walba ku mutaysan karayaan dhahay saan waxaan ku mutaysanaayee maxaa saas ii yeelaysaan dhahay maxaa saas ii yeelaysaa hadda see ku xaalin karnaa oo maxaa iraahdaa arintan lagu sameyn karaa saan waa marka cidii way og yihiin hooyada inay zaid ay ii jeceshahay hooyada zaid ii jecel oo ma sha Allah oo hadii oo yani waxay aragtay in مثلا oo qof iska daacada ahay oo qof shaqo diyaar oo aan iska ahay ay aragtay marka way iska ka jeclaatay hooyada ilaahay dartiisa iska ka jeclaatay ma sha Allah
وهويدا جمع والبيئي أقولاته إن حرم كإسكاج صود كذا حرم كإسكاج صود دوافو ماش يعني هو أدو ناكسنة هذا وحقت ما أقانو الله مستعان markaas gabadhii hadda waxaan sameeyaan yani mashaakil ay keenta anigana problem ay dhaxgelisay maxaa xal maxaa la sameeyaa adi xalkii ani xal ma hayaan ani nafteeda la baxsanaan adi naftaada la baxsanay waxa ratid dhahay cidaada waanda laakiin ani nafteeda ani xabsina marbi ani dhibaatana marbi anda ani shaqa way maada hadday shaqa ahayn hadday warkaas la keenan ani waqti baxayaan dhahay ma salaam waa horta hooyada hay maad markii taas aan dhahay waxa soo galay ilaahay oo ku rooyahay wiilkii walaalkeeda ahaa oo waxa soo galay ulmiya ma aqaan sirik miya oo intaas la exoo wato waan horta xaga iga istaagaan dhahay yaani waligay qolkayga ma soo galin xaga iga istaagaan dhahay horta maxaa daranaan dhahay markaas wuxuu dhahay telefoonkaaga waxa marka wuxuu i tusay message-yadii la diray oo i tusay message-yadii dhan oo gacanta iga saaray waa kana ayuu dhahay message-yada waa kana waxaan soo adi ma dirin yaani numberkayga waa ma inkiri karo okay wixii waa numberkayga u jeedo waa message-yada laga diray wixii dhan yaani screenshot ma aqaan waxba laga soo qaaday wuxuu yiri waxaan soo adima numberkaaga ma ani waxaan ma dirinaan dhahay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay maqlaan dhahay waxaan ma dirinaan dhahay oo hadii dhaar aragtiin diyaar idin ah ina idin dhaarto diyaar idin ahaan dhahay kitaabka ina idin ku dhaarto ani waxaan dhahay daraad saas isaasa ahayd gabadhana is ag fadhinayaan dhahay ani ma aqaan telefoonkayga ku mashquulsana hooyadana way dhahdaan dhahay gabadhan telefoonka ilaalso waa telefoonkayga ma siiyaan dhahay telefoonkayga ma siiyo marka ma aqaanaan dhahay sida ay ku heshay ani ma sheegi karaan dhahay qofkii diray inay aydu tahay in kale xitaa ma sheegi karaan dhahay laakiin ani ma dirinaan dhahay waxa diyaar waa inaan kitaabka jaamaca idin ku dhaartaan dhahay soo weysa qaato ani waxaas ma sameeynin hadii waa sameysay idhawaysiin anda waxa sameynaysiin igu sameeya idinka idin taala laakiin ani waxa u dhaaran karaan kitaab inaan sameeynaan kitaaba markaas Ilaahay markiis agteeda yaalay kitaabkan aan diyaar u ahaan inaan kuugu dhaartaan dhahay oo adi waalidkaaga akida hadda waa fadeexa ku dhex jirnaa waxa la leeyahay naagta idin shaqeyso waa idin daradaas naagta idin shaqeyso horto maxay radaasi xabsi hala geeyo جواهري marka wuxuu yiri fidna inigeedna adi waay oo hooyaday madaxeeda wax walba ay ku dhacayaan u dhahay hooyaday madaxeeda fidna dhanba adiga keen maxaa fidna u keenayaan ani fidna maxaa shaqo ku miliyaan telefoonadeyda ani meeshaan dhigtaa waa shaqeeyaan dhahay teeda kale aan telefoon waardi kama hayaan dhahay inta shaqeynay telefoon shaqo ku miliyaan dhahay marka aan shaqada joojin telefoonadeyda ana haystaan teeda kale hala haystaa halka kale meesha dhigtaayaan dhahay ani ma ogaan karaan qofka iga qaadanay markaas uu soo wasay oo gabadhii walaashiisa ahaa jirkeeda cad yaani ugu jaray cad aniga naxdin marka maamo wanaagsan waay marka daday wax ma aqaan quraan may u aqrinaysa ma aqaan dad bay wax u sameeynaysa markay soo baxday qofta ugu horeysa noqday Jawaahiriyaan laga hormarin ileen gabadhi qolkayga lagu garaacay qolkayga ku dhiig baxaysa ani ma aqaan waxaan sameeyay ma dhaxgali karo waa soo cararay doorka saddexaad doorka labaad ee saarneeday orod uma heblaaye maanta dhibaa dhacayaan dhahay maxaa waa dhibka dhacay saas sidii wax u jireena ugu sheegay markaas waxaan dhahay saas saahe gurigii wiilashii dhana soo baxeena ku dhahay ordaay ay imaadeen mashaakil inay sameysay naaga soo hormaraysa ay ku sheegaysa hooy naagtan shaqaalada naagtan saan in la yeelo naagtan in kan la yeelo naagtan in kan la yeelo maxay ku jawaabtay mintaqaaneen maxay ku jawaabtay waliga daacad iska oo yaani hooy sidaas oo kale way jirtaa ma ku jirtaa horta hooyo oo noocaas oo kale ah dadkeenan ma aqaan wallahi ma umaleyna markaas waxay dhahday jawaahir ma umaleynaa dhahday inay waxaan sameynayso wallahi alcadiim ما أملينا إنه حس ما أنت حتى واحد سوستا بصل ميا واحد جرجراي أنت قضاء ربعنا سميستو عن سميه قضي مركز ربعنا سميستو مديدي عن واحد كجرجراي يعني سس معها يعني تبكي عندك هلا نحوجا واهاي ساس معهن ويلا شيء وحي أملينا مرك مديدي إنا أيجو سوقاتي مديدي إنا ولا مديدي سوقات النساء مديدي وادي مديدي أنا سوقات الناس ده واكنا وادي مديدي وكاسا مركاسا waxay dhahday idhageystay dhahday gabadhan islaameed wax ay idin ka qabto
ilaahay abuurta ma jirto waana huba jawaahir in aysan sameynaynin taas oo telefoonkeeda heblaay intay gacanta ka saarto ama ay dhahdo dadkaas la sheekaysa inay dhehaynin jawaahir waa huba kelmad ay ku dhahdeen weligay aan iloobayn waxay tahay fidna cindigeeda waa walaashiina haddaa wax cishanaysaan walaashiina cishta kabarama bili aadan noocaasa jiro bili aadan noocaasa jiro ani maamadaas waxaan hubaa haddii cunug kamid ah canugeeda ilaahay kuma keenay haddii qof uu dhibaato u geysan lahaa in sharciga islaamka ay horkeeni lahayd oo ay dhihi lahayd waxa rabtiin ku sameeya maamadaas aan hubaa li'anno waliba qiso kala dhacday taas wax kale oo kasii daranna ma dhihi karo laakiin wax kale waxaa jiro dahab oo ma aqaan sida idin kugu tilmaamo dahaba waxaa dhumay dahab cad dahabka loo yaqaan dahab cad oo qaaliga ah oo asla gurigaas dhaxdiisa qaali insha Allah marka la idinka sheekeen doona haduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali ka noqdo marka runtii maamooyinka noocaas oo kala ma aqaan waxa ku tilmaamay Ilaahay hanaga dhigo kule Ilaahay subhanahu wa ta'ala hanaga dhigo markaas waxay dhahday idib ma lihidiina gabadhan afkiina ka leexiyay dhahday gabadhan afkiina ka leexiyay qofkii jawaahir kelmad damba dhahay ani ima sheegto dhahay ay dhahday hooyadiina ma ihi jawaahir qofkii kelmad damba oo dhaho ani ima sheegto dhahay idib lahaada afkiina والله ويلش مرد دم بإنسان إلى هذين إنسان إيصال هن قفكي إذن لآن قل كذا قلنا وحيد جواهر ميامي مقلسة ما ذا حبتك ما ذا حبتك كسر فقفكي إذن لآن قل كذا سوقل هرت سيوك سوقلين عندها قل كي إذن لآن سيوك سوقلين مركز وحي يقول هذا قفكي إذن لآن حرام وايد هذا قفكي إذن لآن قل كذا وسوق جد أما جي كذا وحكو كرنيس وسوق جد ما ذا حبتك كانوا فعلي ده بوت كي قاعد بيرصدنا marka ma sha Allah taala ma sha Allah tabarakallah maamadaas oo kale adduunka ku nool waynu ku mahadsantahay Ilaahay jisadeeda jannada ha ka dhigo weligay ma iloobi doono inta Sacuudi Arabiya joogay maamadaas weligay ma ilaawi doono Ilaahay ha u xafido Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u xafido waa maamada dhihi jiray heblaayay hal cunug ii dhal anaa ku korinaayay inta gurigaaga joogo hal cunug ii dhal dhihi jiray marka ma sha Allah tabarakallah maama aad u wanaagsan ee aheeday waa ma santihiin dhamaantiina inta ila socoto waa ma dhawo sheekada qisada ma dhawo insha Allah ta'ala waa idin soo gudbin doona hadba aayar insha Allah ta'ala marka aad u ma santihiin tadcamuni subscribe ama ishtiraak اعجاب فهمتين تعليق أما سأقول تقانين سبسكرايب لايك شير كومنت انتبه وحقينا إن شاء الله تعالى وانكم هسنتهين مروة بسيدة إيتا بعدين دادك يقول عصبنا وجه فرن كسو دوادا وولا شينا جواهر حسين oo hay mar walba meesha idin soo waji madoowan oo mar walba idin haysa hadalo isdhihi karto walaalahaaga way cajibinayaan insha Allah ta'ala waan ma santiin salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh